hal qodob oo asagu uu ka dhawaajiyaan rabaa inaan ku noqdo oo aan sii xoojiyo fahamka dadkeenna meelo badan maadaama dhaqanka xisbiyada iyo xisbiyada badan ay nagu cusub yihiin oo mudane jawaari soo uga hadlay 1969 ilaa 2000 iyo maxaan ku idhaahdaa iyo 19 konton sano ayaa u dhaxaysa meeqa qofood oo konton sano ka hor ama codaysay ama xisbi soo hogaamisay ama xisbi ka mid noqotay oo qof fircoon xubin fircoon ka ahayd ayaa meeshaan fadhido way fadhiyaan cimrigooda Allah raajiyo laakiin ma tiro badna dadka inta fadhiya badankoodu waxay u badan yihiin dad aan waaye aragnimo badan xisbiyada u lahayn marka in xoogaa ama marka qaarkood waa mucaarad iyo waa qaran dumis iyo waa kan iyo la yiraahdo muxuu ahaay waa suurtagal dadka qaarkiisna ay ku qancaan faham yarida dhinaca ka jirta awgeed laakiin waxaan rabaa halkaa inaan ka sheego calool waxay ku bukooto laguma daaweeyaan la yidhi dalkan talada oo hal gacan ku urursan gacan bir ah dowlad adag hogaamiye adag waa soo aragnay 30 sano ayaan la tacaalow haynaa wixii aan ka dhaxalnay Soomaaliya waxay xorriyad qaadatay 1960 ilaa 1990 ilaa 2020 hadda horteena waa 30 sano kale 30 sano waxaan la tacaalow haynaa 30kii sano ka horreysa qaybo ka mid ah wixii aan la soo kulannay iyo wixii na galay marka waa sidaas dadka Soomaaliyeed yaan lagu khaldin xiisana looma qabi karo xaqiiqada waaye hogaamiye xoog badan iyo gacan bir ah iyo maxaan ku idhaahdaa magaciisa dalkan maslaxad uma aha adduunyadana cid ku soo waaqtay ama ku soo horumartay ma jirto waxaan u baahanahay sharci xoog badan waxaan u baahanahay hay'ado dawladeed oo xoog badan waxaan u baahanahay dawlad raali laga yahay oo dadku ay ku kalsoon yihiin oo ay u arkaan dawladoodii iyaga matalaysay oo darahooda ka shaqaynaysay wanaagooda dhibaatadana ka hor istaagaysay waxaan u baahanahay waa midaas marka waa inaan lagu qadamin intaa kadib qofka muwaadinka ah dal kasta ha joogo saddex waxyaabood ayuu leeyahay muwaadinku xuquuquu leeyahay muwaadinku mas'uuliyaduu leeyahay muwaadinku awooduu leeyahay xuquuquu leeyahay dowladuu ku leeyahay iyo dalkiisa mas'uuliyadaa saaran dowladdiisaa mas'uuliyad ka saaran tahay ilaalinteeda dalkiisaa mas'uuliyad ka saaran tahay ilaalintiisa awooduu leeyahay wuxuu awood u leeyahay dalka iyo dadka inuu u doorto sharciga ku habboon hoggaanka ku habboon مسؤول كقوها بون كان كوها بونين إنه جيدو